Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kanaalkan waxaa iigu dambeysay inaan wax ka iraahdo ama aan wax ka sheego gudihiisa sanado fara badan gudahood oo aan wax kanaalkan soo dhigin. I think waxaan maleynayaa inay 3 sano ka hor ay ahayd. So, xaalado jira awgood laakiin muuqaalkan waxaan ugu talagalay inaan ku sheego Anchor waaye, podcast waaye, wax ma lahan baalkii oo fiidiyoya ama edit ah si wixii u noqdaan baalkii. So, waxaan rabaa maanta inaan mowduuc ka hadlo maxaa keenay in noloshu nagu adkaato. Intii aan ku jiray dee qof walba wuu nool yahay. Noloshana markii waxyaabo badan baa ku soo maraya. So, waxaan ugu talagalay inaan ka arko ama iska sheego waxyaabihii aan anigu soo arkay iyo waxyaabo laftirkaagu noloshaada ka dhaxli karto, noloshaada feedback ku siinayso oo loo baahan yahay waxaasaas nolosha ku dhacaysa, waxaasaa niyow qaldan, waxaasaa qaldanaysaa. So, maxaa nolosha adkeeya? Markaa aragtid systemka markaa u hadlayn anigu meelo soko kama hadlo. Anigu markaa hadlaya hadda waxaan ka hadli jiray meelo soke. So, meelo soko oo ah inaan ku istaago oo aanan dhaafin waxa mentalka ah. Tusaale kale waxa materialka ah inaan ku wareegto xayndaabka adduunyada iyo tutorials waxyaabahaas oo kale waxa inaan ku dhaho problemkaas hadduu ku haysto qodobkan samee, qodobkan samee, qodobkan samee, qodobkan samee material ah. Laakiin waxa nolosha aan ogaaday waxay tahay in materialka ama waxa laga yaabaa inaa kelmadda si qaldan u dhahayo. Waxaan ka wadaa in aan ku ekaado waxyaabaha makhluuqa ah oo la abuuray in makhluuq xalliyo. That's not what I think hadda oo aan ka hadlayo. Waa ka hadli jiray laakiin in wax materialka lagu xalliyo ama adduun oo kale ka sheekeeyo tutorial iyo waxyaabahaas oo kale waxaa sameey. Waa secret-ka aan helay waaye. Secret-ka aan helay waxay tahay adduunyada inay jiraan makhluuq iyo khaaliq. So, adiga waxaa tahay makhluuqa tahay, khaaliqana waxa waaye Ilaahayga wax abuuray. So, you need inaad Ilaahay ku xirmatid. Ma garanaysaa? So, waxaan rabaa waxyaabaha hadda aan ka hadlayo inaadan ka degdegin oo aan kuu sheego sababtoo ah. Marka, maxaynu waagii aan yarayn nolosha hadda way adkaatay marka la soo weynaado 15 sano markaad gaarto kale 18 sano nolosha sidoo hore maaha. Waxaa bilaabaysaa inaad fikirtid overthinking, responsibility. Tusaale kale waxaad ka fikiraysaa xayndaabka kugu xeeran sida mustaqbalkaagu noqon lahaa. Haddaa mustaqbal fiican heli lahayd, sidee mustaqbal fiican ku gaaraa, sidee mas'uuliyad ku qaadaa dhinac kasta reerka, familiga, adiga sidee noloshaada ku hormarisaa, maxaa kaa dambeeya. That is what we inheriting oo laabteena guba weeye. So, markaan midaas oo kale ka fikirno oon iraahno waa waxyaabaha koowaad oo keena in noloshu adkaato maaha waxyaabahaas keena in nolosha adkaato maaha saas. Mas'uuliyadaha aad qaadaysid that's your garashadaada waaye. Oo qofkii markuu weynaado wuxuu garanayaa in mas'uuliyad uu haysto oo mas'uuliyad hadda kadib wixii uu samayn jiray uusan samayn karin. Waxyaabo badan. Markii aan yarayn maxaan u faraxsanayn? Why? Markaa yarayn aan u faraxsanayn laakiin hadda aan u murugoonnaa overthinking aan u samaynaa waxyaabo badan ay nooga qaldan yihiin. Lambar 1 waxaan ogaaday waxay tahay oo aan hadda podcast-yo badan ama meelo badan uga hadli doonaa oo qodobka ugu weyn ah oo noloshayda aan soo arkay waxay tahay in dambiyada aad samayso. Markii aan aniga kuu soo sheegay markii aan yarayn aan u faraxsanaan jirnay waxba aysan nooga halaysnayn nolosha si wacan noogu socotay. Laakiin markii aan qaan gaarnay maxay u bilaabatay in aynu dareenno xoogaa walwal, inay wax jiraan something in gudahaaga ay wax ka dhex jiraan oo kuu horseedaya inaad waxa weeye walwashid, murugootid. Marka ayna soo bixi doonaan waxyaabo badan oo adiga responsibility-gaaga mas'uuliyadahaaga ah. Inaa wixii markaan waxaa kala garanaysaa wixii qaldan iyo wixii saxan. Markaan qof weyn baa tahay moogta.
maxaa kala garanaysaa wixii saxan iyo wixii kuu xun. Maxay sidaas u dhacayaan marka? Number one waxyaabaha kuu horseedaya in noloshu adkaato waxa weeye because of your sins. Because of your sins, dambiyada aad geshid waa qaybta koowaad ee kuu horseedaya in nolosha aadan waxba ka gaarin. Because of dambiyada aad gasho waxa waaye dhibaatada ku haysata dhan waxa waaye dambiyada aad gasho. Because of dambiga wuxuu kaa hor istaagaa let me think hadda wax yar fikir. Aadam waxaa looga soo saaray naarta oo so successful ah oo jannada ku jira oo waxba u baahnayn inuu helo oo leh oo weliba Ilaahay ku baalkiyey oo ku manaystay in qof weheliya oo Xaawa laga sameeyo feertiisa oo uu dalbaday inuu Ilaahay qof weheliya uu jannada ka helo. Isagoo xitaa malaa'igta la joogto Ilaahay uu arkayo something like that. Why uu uga soo baxay marka nimcadaas? Maxaa keenay inuu nimcadaas ka soo baxo isagoo jannada ku jiro already loo baahnayn in imtixaan la sameeyo oo dadka la ixtiraamo adduunyada la keeno. Why adduunyo ay ka dhalatay? Why systemkan adduunyo u samaysmay? Adduunyo waxa la yiraahdo oo dadku ku wada nool yihiin layla wa nahaar ay tahay day and night. Why systemkan loo abuuray day and night dadku ku wada nool yihiin adduunyadan qofna uu dhasho qofna uu dhinto. Why loo sameeyey waxaan food cuntada biyaha qoraxda. Why waxaan loo diyaariyey si exam lagu galo oo qofka lagu imtixaamo. Dadka qaar waxyaabahan oo kale ay ku kalsoomaan oo xoogaa yar oo raaxadaan oo kale ah. Because of the system why systemkan loo abuuray dambi dhashay awgiis. Aadam wuxuu ku dhacay fail into sins, wuxuu ku dhacay dambi. So dambigaasa wuxuu u horseeday oo uu ka hor istaagay inuu ka baxo systemka oo system cusub abuurmo oo adduunyo la dhaho. So marka dhibaatada koowaad oo qof walba haysata waxaan u maleynayaa barnaamijka oo dhan inuu siniska dhibaatada ku haysata dhan inuu sinis yahay. Because of maba jiro waxyaabo kale oo ku haystaba oo kaa haysta in nolosha ku socon laadahay waxyaabo badan aad xaqiijin laadahay. Laga yaabo inaad rabto inaad lacag samayso, inaad nolol fiican ku noolaato, inaad cibaado samaysato, inaad waxyaabo badan samaysato. Waxyaabaha kaa dhex guuxayo kale why waxa kugu adkeynaya maxay yihiin inaysan waxaas rumoobin. Day by day maxay u adkaadaan? Because of your sins. You fail into sins. Maalin kasta waxaa samaysaa oo ku dhacda dambi. Because of dhammaanteen waxaan nahay dambiilayaal. So dhammaanteen waxaan nahay dambiilayaal. So dhibaatada koowaad ee na haysata waxa weeye dambigaas. I think inuusan qodob kale jirin oo nolosheena saameyn ku leh oo aan dambiga ahayn. So dambiga waxa waaye taabka koowaad oo noloshaada ran gareynaya ku horseedaya everything oo xun. Even hell naarta xitaa asaa ku geenaya. So markaad wax baarto in aad podcast dhageysato wax fiiriso waxa ka fiican inaad wax baarto oo dib ugu laabato Holy Quraanka waxyaabo badan aad fiiriso. Marka dhibaatada koowaad I think waxaan oo dhan waxaa yacni aan ku soo fiiriyey tusaale noloshayda intaan joogay soo fiiriyey waxa waaye dambiga. Dambiga waxa waaye dhagax weyn oo aad kor ka saaranayso. You know maalin kasta qof example qof maalin kasta dhagax tusaalahaan oo kale dambiga koowaad aad gashay dhagax weyn aa korka kuu saaran. That is dambiga aad gashay waaye dhagax weyn aa korka laguu saaray oo tuunka laguu saaray. Culays aad dareemaysaa mana qaadi kartid. So you fail dambi kale haddana dhagax kale kuu sii saarmay. You fail dambi kale maxaa soo istaagtaa dhagax baa kor kuu saaran mana istaagi kartid. Every day dhagax baa korkiisa ka saartaa. So
dhibaatada koowaad waxaan isleeyahay aan think anu dembiga inuu yahay. So barnaamijyo badan baa waxaa uga hadli doonaa dhibaatadan iyo waxyaabahan hadda bilow waaye oo waxaan ku fiirinayaa in anigu aan anigu laftirkeyga hadda bilaabahayo oo yacni podcastga bilown ku ayaa ka wadaa. Waxaan samayn doonaa qodobyo badan oo ku saabsan dembiga iyo tusaale podcastgan oo kale. I think waxaan jeclaan lahaa inaan 100 haddii 1000 podcast xitaa laga sameeyo qodobkan weli wuxuu u baahan yahay in si fiican dadka loogu sharaxo. So dhibaatada koowaad oo ku haysata waxaa waaye Eugenics. Eugenics is the biggest trap you ever had. Okay? Aan sharaxno marka dembiga waa maxay? Dembiga waa maxay? Dembiga haddaa wax yaro aan sharaxo waxa waaye wax aan Ilaahay kuu ogoleen oo aad samayso. So ama wax aad Ilaahay kuu ogoleen oo aad samayso iyo wax lagaa reebay oo aad ku dhacdo iyo wax lagu baneeyay oo aadan samayn. So wax laguu waajib yeelay oo aad ka tagto iyo wax lagaa diiday oo aad u tagto. So waxay kusoo biyo shubanayaan amarka Ilaahay oo aad jabiso. So waxa waaye waa taas dhibaatada koowaad wixii laguu abuuray oo aad jabiso. You know qisooyin badan baa arkaysaa oo dembiga ku saabsan. Quraanka marar badan baa looga hadlay dembiga dembiga iyo qofka sameeya iyo dhibaatada ku dambeyn doonaya. In Allaha laa yadlimu nnaasa shay'an walaakina annaasa anfusahum yadlimuun baan u malaynaya aayad inay tahay oo ah Ilaahay ma dulmiyo dadka laakiin dadkaa nafsadooda dulmiya. You know markaa nafsadaada dulmiso systemka wuu isku xiran yahay marka aad qalad gasho oo kale wuu kugu soo laabanaya qaladkaaga wuu kugu soo laabanaya. You know hadda qof tusaale ahaan qofaa laga yaabaa inaad caysid dheyga labaad ama maalinka labaad qof kale aadna ku caynaya. Haddaysan ku cayn way kuu baalkiyeesmaysaa way kuu kaydsamaysaa ilaa uu dembigaas adigu kugu soo laabto uu ku baalkiyeesmo. So haddii aad siniska ama dembiga aad caadaysato every sinis aad samayso ama qof aad ku samayso ama nafsadaada aad ku samayso way kugu soo laabanayaan. Hadda noloshaada marka think about that. Qofka fikiraya oo caqliga leh waxa fiican inuu keligiis meel inta istaago uu fiiriyo waxyaabaha ka qaldan. Siniska waa dhibaatada koowaad ee adduunyada ama waxa weeye makhluuqa haysta. Dadka la abuuray oo servant addoommada ah dhibaatada koowaad oo haysata waxa weeye you know annaga dhan waxaan nahay addoommo Ilaahay sax. Dhibaatada koowaad ee na haysata waxa weeye dembiga aan Ilaahay ka gelayno ama nafsadeena ka gelayno ama dadka kale aan ka gelayno oo nagu soo laabanaya. So haddaan qiso kale ku daro shaydaanka laftirkiisa I think marka la fiiriyo meelo qaar marka la fiiriyo dadku waxay dhahaan malaa'igtuu la socon jiray oo dadka qaara waxay dhahaan oo taabiciintii ama baalkii ama dadkii xadiisyada soo warin jiray ama culimadii hore waxay dhahaan malag buu ahaan jiray baa la dhahaa. Riwaayad kale waxay dhahaysaa wuxuu la socon jiray malaa'igtuu iskala socon jiro wuu la shaqayn jiray. So why uga soo baxay marka asagoo malaa'igta la jooga ama iska dhahno malag ah suu uga soo baxay inuu wada shaqayntaasi inuu ku wada jiro. Sababta uga soo baxay waxa weeye dembigu ku dhacay waa aadan inuu u sujuudi waayo uu diiday. Aadanna dembi naarta waxa laga soo bixiyay waa dembi shaydaankana sorry aadanna jannada waxa laga soo bixiyay waa dembi shaydaankana waxa naxariista Ilaahay looga soo buriyay oo uusan ilaa hadda cadaawadaas ay ka dhalatay waa dembi. So dembiyada aan samayno waa qayb ka mid ah nolosheena kuwa rangareeya. I think inuusan qodob kale jirin waa kuu sheegay inuusan qodob kale jirin oo noloshaada baalkiyeeya. Because of waxaad doonaysaa tusaale kale something dad badan waxaa jira aan salaada tukan. Dad badan waxaa jira aan quraanka akhrisan. Dad badan waxaa jira aan waxyaabaha waajibka lagu waajib yeelay ama lagu adoonsaday aan samayn. Even inay iska daawo wixii laga xaraamtinimay inay ka tagaan wixii loo baalkiyay inaysan samayn. Tusaale kale waxaad rabtaa sometimes qof wuxuu ku leeyahay imagine qof wuxuu ku leeyahay waxaan rabaa inaan success gaaro horumar gaaro wax qabsado nolosha meel ka gaaro wuxuu leeyahay inaan success gaaro rabaa every day
xaya cala asalaat baa la yidhahdaa, xaya cala alfalaah. Maxay tahay micnaheeda marka? Kaalay u kaalay, xaya cala asalaat, kaalay salaada u imow, an xaya cala alfalaah, kaalay u imow successka. Waa falaax waxa waaye guusha, kaalay guusha u imow. You want to guul, haddana kaalay guusha imow aa lagu leeyahay, uma qaadanaysid. Maxaa qaldan marka? Waxaad doonaysaa inaad guulaysato oo meel fiican gaadho, maalin kasta waxaa lagugu yeeraa si aad u guulaysato, haddana ma qaadatid. What's wrong with you? Waxaad rabtaa inaad guul gaartid, maalin kasta waxaa lagu leeyahay xaya cala alfalaah, xaya cala asalaah. Every day aadaanka waa maqashaa xaya cala asalaah, xaya cala alfalaah, haddana ma aadid. Why? Miyaadan doonayn inaadan success gaarin? Miyayse waxaan run ka ahayn inaadan success gaarin? Dadka qaar dhibaatada jidha waxa weeye oo aan rabo inaan laftirkeedu ka sameeyo meelo badan uga hadlo podcast aan uga hadlo waxay tahay qofka aad u sheegto wax wuxuu malaynayaa hadda sometimes dadka qaar waxay isleeyihin hadda ninkaa waa nin wacdinayo sheekha maasha allah iska baal maasha allah wacdi maahan aniga adigu wax masma daamno laakiin waxa weeye sida dhabta ah waxaa jira oo dhabta ah waxaa jira oo dhabta ah xaqiiqada jirta oo dhabta ah oo adiga hadda ku haysata so every day waxa lagugu yeeraa success but marati so dunuubta way the biggest job oo hadda ma haysta oo rabno inaan ka tagno oo loo baahan yahay waxa iyo shaqooyinka inaa heshid shaqooyinka kugu adkeeyey inaad meel fiican gaartid waxa kugu adkeeyey waxa nafsadaada welwelka u horseeday waxa haddeertaan dhibaatada kuu keenay sometimes hadda waxaa laga yaabaa inaad dhibaato ku dhex jirto ama wax ka welwelaysa ama waxyaaba dib u raac think about that waxaas waxaa keenay dembi aad samaysay adiga so waxaan u baahanaa inaan marka hore dembiga iska baalkeenno oo iska tirtirno si ay wax kasta u fududaadaan